بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan rabnaa inaan ka sheekeyno geedka la yiraahdo waxaan ku raahdaa Rosales waa luqad Ingiriisiga lagu yiraahdaa karkadayna luqadda Carabiga ayaa lagu yiraahdaa. Geedkan marka waa geed aad u faa'iido badan. Ummadda Soomaaliyeedna waxay u baahan tahay in la baro si ay uga faa'iideystaan beeritaankiisa iyo isticmaalkiisa iyo fawaaidda uu leeyahay labadaba saddexdaba. geedkan aduu 4 sano ka hor baan meeshan ku beernay. طبعا wax dadkii aad uma aqoon laakiin akhiran waa la bartay oo waxaan ku raahdaa waa aad markii la isticmaal haddana waan markii labaad oo beerayno mirihiisa dibadda ka keenay dabcan wadanka ugu badan ee laga helo abuurkiisa waa Suudaan iyo East Africa oo dhanba markii geedka kan ayaa loo isticmaalaa waa la karkariyaa markii la karkarinayana ama la waxayna ama la isticmaalayana waxa la isticmaalaya waa ubaxan marka intaan korka saaran oo idin muuqato ayaa laga gurahayaa markii laga guro oo saa loo waxeeyo oo waxyaabo xabba ma hayso loo wada waxeeyo ayaa laba sabab la sameyn kara waa la karkarnay biyo loo karkarnay biyo way gududanayaan aad bay gududanayaan hadda gacmaha saa orataan oo kale gudud baa ku jira marka way gududanayaan markay gudutaan oo biyo aad ku milmaan waxay yani midabkiisa laba waxyaalo waa loo isticmaali karaa shaah ahaan waa loo isticmaali sokor inta lagu darsado shaah waa loo isticmaali karaa waxa kale oo loo isticmaali karaa inta la qaboojiyo frinjeer la gashado ayaa sidii fiimtada kale loo cabaa waa qodobka labaad waxa la sameyn karaa waa laga gurahayaa waxyaalaha kana la gurahayaa markii waxaan dhan la guro waa la engejinayaa asaga marka waa la engejinayaa markuu engego oo biyaha ka baxaan oo engegaan sidii hadda aan sheegnay oo kale waxaa loo isticmaali karaa waa la karkarin karaa waa markaas ama fiimta loo cabi karaa ama shaah loo cabi karaa ama se waa la shiidayaa markii la shiido ayaa asna sidoo kale loo isticmaalayaa labadaas waa sida loo isticmaalo weeye fawaaiddiisa way badan tahay aad bay u badan tahay waxa ku badan horta maadada ironka la yiraahdo ama xadiidka loo yaqaano aad bay ugu badan tahay sida darteed dumarka waxaan ku iraahdaa uurka leh faa'iido badan bay u leedahay ilmaha iyo ayadaba aad bay ugu faa'iido badan tahay waxa kale oo kamid ah faa'iiddiisa kamid ah sonkorta dhiigga ku jirta uu yareeyaa maarta uu yareeyaa konta uu yareeyaa xataa marka u horeyso haddii qofku iska isticmaalo xataa difaac ahaan ayay u noqonaysaayo waxa kale oo kamid ah faa'iiddiisa maxaan ku iraahdaa ishak wuxuu la dagaalamaa kansarka cudurka kansarka la yiraahdo uu la dagaalamaa aad buu la dagaalamaa haddii in la isticmaalo marka waxa aad kale ku badan mawaad ku badan waxa kamid ah ironkaas aan sheegnay magnesiumka vitamin C waxaas oo dhan baa ku badan aad ugu badan marka sidaa darteed dadku waxay yiraahdaan inuu qofku uu cunto joogto ah ka dhigto cabitaan joogto ah ka dhigto ayay ku dardaarmaan markii la beerayo marka oo la rabo in la beero kan markaad kala baxday waxyaalihii aad isticmaalaysay gudaha waxa ku jiro miro kan lama tuurayo marka miro ku jiro gudaha mirahaasna waxa loo reebtaa abuur yaani muddo badan ku oolaya abuur baa loo reebtaa sidaa darteed waagi hore anigu aan beernaashan ku beernay abuur baan ka reebanay waana ku beernay mirihii waa kuwaas marka hadda wuu qoyan yahay laakiin mirahaas markay engegaan ayay maartay yaa la beerayaa ku jiro gudaha ugu jiro waxaan u maleynayaa hadda way muuqataa oo kuwa mirihii maxaan ku raahdaa soo daadinayo mirahaasaa la beerayaa waa la dhiganayaa waa la kaydinayaa markaa rabtaad beeri kartaa waxaa marka fawaaiddiisa kamid ah in muddo yar gudahood hadda 3 bilood yuu noo beeranya geedkan 2 bilood iyo bar 3 biloodna waad ka faa'iideysan kartaa waa guran kartaa muddana wuu ku soconayaa halkii geed hadda waa laantaan labadan laamood waxa geed baan ka soo gooynay geedka asagan ka soo gooynay waxa ku haray ilaa 10 laamood oo saan kala ayaa maartay ayaa ka baxay oo marka wax fiican baad ka helaysaa xogaa marka wuxuu u baahan yahay anagu xogaa dhulka nagu yar iyo xogaa waan helay geedka waa la kala dheereeyaa si uu helo waxaan ku iraahdaa space ama masaafo ballaaran oo ku fido hadda anaga marka uu sakaana dhaxgalsa u jeedaan sidaa darteed haddii qofku dhul fiican uu haysto wuu kala fogeynaya ilaa 1 mitir ziyaado intaasna wuu buuxinaya xaq 4 koon u kala faafaya horta saan sheegnay mirahaas laga beeraa inta badan
miraha marka laga beero wuxuu qaadanayaa asbuuc taqriiban ayuu qaadanayaa si uu ku dhasho anagu hadda alxamdulillah markaan miraha waa soo iibsanay waxa la yiraahdaa germination ama dhalashada miraha la beeray dhalashadoodu boqolkiiba boqol anagu noo soo baxay waxba naga baaqanin laba marxaladood bay ahayd marka hore waa kan waxa ka dambeeyo mar kale oo asnaan ka beernay labaduba hadda waa miris wal guranaya marka jawiga waa jawigan annaga hadda aan maaragtay maadaama uu Suudaan asalkiisa ama East Africa marka la baaray East Africa dhahan laakiin Suudaan buu aad ugu badan yahay isku cimilaan annaga marka East Africa oo dhan isku cimilaanahay marka cimiladan Soomaaliya uu ku baxaya waana u jeedaan oo hadda uma baahnaba sharaxaado waa kan maanta naga dambeeyo soo waxaanahay xogaha marka wuxuu u baahan yahay fertilizer yani cunno u baahan yahay nafaqo u baahan yahay geedka nafaqadaas marka runtii inta badan anigu aad uga maan xoog saaran laakiin ilaahay waa noogu guuleysiyay marka waxa kale oo jirta oo laga maarmaan ah dadka aan beeralayda aan kula dardaarmaya ama geedkan ha ahaado ama geed kale oo ha ahaado mirihiisa la cunayo ama caleentiisa la cunayo inay ka digtoonaadaan kiimikaalka lagu buufinayo laana kiimikaalka lagu buufinayo caleenta toos buu u qaadanaysaa haddii caleenta toos u qaadatana waxaan ku idhaahdaa waa dadkii dhibaato u keeni kartaa marka waxaa jiro markii hadday laga maarmaan noqoto oo in la isticmaalo kiimikaalkaas ay noqoto in loo dhaxaysiyo muddada lagu rusheeyay iyo muddada la isticmaalayo muddo dheer oo asbuuceen laba asbuuc amal kale taa wayna ku qoran tahay markasta kiimikaalka la isticmaalayo muddada ay ku jiri karto geed si kiimikaalka naftiisa geedka ku jiri karto sidaa daraadeed beeralayda waxaan aad maaragtay aan ugu boorinayaa inayna kiimikaalka inay ka maarmaan hadday ka maarmi waayaan oo daruuri noqoto in la isticmaalo in ay muddo u dhaxaysiiyaan muddada la buufiyo iyo muddada la isticmaalayo marka bimacnaa waxaan ka soo wadaa haddii uu asbuuc qaatay mirihii ku dhashay muddada aad beertay iyo muddada aad ka faa'iidaysato oo guran kartid 3 bilood xuduud 3 bilood waaye 3 bilood wuuna ku soconayaa muddo adigu ilaa 3 kale taqriiban ku soconaya